afhayeenka komishanka doorashooyinka Somaliland Saciid Cali Muuse ku sugan magaalada Burco ayaa ka warbixiyay halka ay marayso bixinta kaararka codbixiyayaasha oo maanta wajiga labaad si toos ah uga bilaabmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. afhayeenka ayaa kormeer ku soo maray goobaha ay ka socoto kaar qaadashadu kadib shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku baaqay inay bulshada gobolka Togdheer ka faa'iideystaan muddada ay socoto kaar qaadashadu iskana xaadiriyaan goobaha cayiman ee ay yaalaan sanaaduuqda kaararka codbixintu. maanta oo isniina waxa degmada Burco ayaa ka bilowday kaar qaybintu maanta oo goobo 14 ah oo magaalada gudaheeda ah aanu soo maray iyo 9 goobood iyadana aanu qaybinay dadkii miyiga ka yimid aanu soo kormeeray hawshu si fiican ayay uga socotay dadku kuyo dhaadheer ayaa meelaha qaarkood ka jiray meelaha qaarkoodna dadku waa ku yaraayeen marka runta loo hadlo laakiin waxa muuqatay niyad ah dadku inay doonayaan inay kaarkoodii qaataan aad baan ugu boorinaynaa uguna dhiirigelinaynaa dadku inay kaarka qaataan waxa anaga komishanka hadaan nahay faa'iido noo ah oo aan u arkaynaa inaan hawsheeda ka soo baxnay markuu dadku ay kaararka ugu badan qaataan hadhowna ay kaararka ugu badan ay ku codeeyaan oo ay doorashada madaxtinimada ay ku galaan sidaan u kala qaybinay waxa weeye 11 goobood oo magaalada gudaheeda ah oo dadku ay ka qaadan doonaan sooyaal khayriyada inajibiye meelo fara badan oo kale dhulka wada caanka ah ayaa laga qaadanaya haddii la baqadarkeed leeyahay goobihii miyiga ahaa ee degmada Burco ahaa iyagana waanu isu soo ururinay dhammaantood iskuul ayaan isku keenay laakiin goob kaliya ma aanan dhigin 9 goobood oo iskuulka kamid ah ayaanu u qaybinay min 1 ilaa 9 fasal ah dadkii miyiga ka imanaya amaba iyagu magaalada jooga oo miyiga markii hore iska diiwaan galiyay waa in ay tagaan dugsiga Cabdalla Nuuri oo magaalada bartamaheeda ku yaala. Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco.